السلام عليكم meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka qodobada horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Lionel Messi oo magacaabay xidiga ku guuleysanaya abaalmarinta Ballon d'Or kadib markii laga saaray liiska 30 ciyaartoy ee u tartamaya abaalmarintaasi Erling Haaland oo ku ceewooway ciyaartii Manchester City shalay guush ay ka gaareen kooxda Bournemouth barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobada kale ee barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Erik ten Hag oo ciqaab adag marsiiyay ciyaartoydiisa iyo ficilka uu maanta sameeyay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan Paul Merson iyo Chris Sutton oo saadaal isku mid ah ka sameeyay Darwin Núñez ka hor ciyaarta Liverpool iyo Crystal Palace barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha fadlan hadaad ku cusub tahay like inoo saar subscribe dhasina share gray si barnaamijkeena asxaab badan u gaaro mahadsanidina xidiga reer Argentina Lionel Messi ayaa magacaabay xidiga ay la tahay in uu ku guuleysan doono abaalmarinta Ballon d'Or sanadkan kadib markii laga saaray liiska tartamayaasha sanadkan isla markaana lagu soo diray ciyaartoy xafiltamaan ee Cristiano Ronaldo Lionel Messi oo da'diisa ay tahay 34 sano jir ayaa xilli ciyaareedkii tagay uu ahaa mid aan u wanaagsaneyn waxaana uu hore ula qabsan waayay kooxda Paris Saint-Germain waxaana taasi ay keentay in laga reebo liiska ciyaartoyda ku tartamaya abaalmarinta Ballon d'Or oo wargeyska France Football uu soo saaray isbuucan isagoo waraysi siinay warbaahinta TYC Sport waxa uu Lionel Messi sheegay in kabtanka Real Madrid Karim Benzema uu yahay ciyaaryahanka sanadkan la guddoonsiin doona abaalmarinta Ballon d'Or la bixin doona horaanta bisha October waxaana uu yiri waxay la tahay in sanadkan aanu shaki ku jirin abaalmarintan in la siin doono ciyaaryahanka kooxda Real Madrid ee Karim Benzema waxaanu soo qaatay xil ciyaareed aad u wanaagsan waxaana uu Real Madrid kula guuleystay tartanka Champions League ciyaaryahanka reer France ayaa qaab ciyaareed fiican uu soo bandhigay tartanka Champions League laga soo bilaabo wareegga 16 tartanka Champions League ilaa iyo finalkii ay ka qaadeen kooxda Liverpool Karim Benzema ayaa xil ciyaareedkii tagay waxa uu Real Madrid u sabtay 46 ciyaarood dhammaan tartamada waxaana uu dhaliyay 44 gool iyo sidoo kale 15 kale oo caawin ka noqday halka xil ciyaareedkana uu ku furtay guul weyn oo ay arbacadii ka gaareen kooxda reer Germany ee Frankfurt oo ay ku garaaceen UEFA Super Cup iyadoo kaga badiyay 2-0 waxaana uu kamid ahaa ciyaartoyda qaab ciyaareedka fiican kulankaasi ka sameeyay Weeraryahanka kooxda Manchester City Erling Haaland ayaa ku ceewooway ciyaartii ay Sabtidii kooxdiisa 4-0 ay ku xaaqday Bournemouth taasi oo ka baxay isagoo aan wax gool dhalin isla markaana garoonka ku dhibaatoonayay xidiga reer Norway ee Manchester City kala soo wareegtay kooxda Borussia ayaa 2 gool dhaliyay ciyaartiisii koowaad balse shalay ayaa wax badan la iska weydiinaya sida uu la qabsan karo Manchester City oo ka ahaa ciyaartoygii ugu liitay ee garoonka 22 sano jirkan oo kulankiisa Community Shield ee Liverpool goolal qasaariye ayaa rigooro ku furtay xisaabtiisa goolasha Premier League waxaana uu ka dhaliyay West Ham oo welina mid kalena raaciyay axadii toddobaadkii hore laakiin kulankiisii koowaad ee uu ku ciyaaray Etihad Stadium ayaa ku fashilmay oo aan wax gool dhalina waxaana ceeb ay ku noqotay in uu wax gool dhalin waayo kulankii shalay ay la ciyaareen kooxda Bournemouth dadka falanqeeya Sportska ayaa waxay shaki ka qabaan qaab ciyaareedka xidigan kadib markii uu ku guuldareystay in garoonka kooxdiisa Etihad Stadium wax gool uu ku dhalin waayay
tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag ayaa kansalay fasaxii ciyaartoydiisa ay gali lahaayeen maanta sidii awal hore ay sameyn jireen maalinta xigta ee kulanka ciyaarta waxaana saaka isugu yimaadeen garoonka tababarka halkaasi oo xidigaha qaarkood ciqaab uu ku marsiiyay tababaraha Erik ten Hag ciyaartoyda Manchester United ayay ahayd in ay axada maanta ay fasax aadaan maadaama ay ka soo noqdeen safar ay ku tageen London hase yeeshee Erik ten Hag ayaa ku qasbay ciyaartoyda kooxdiisa in ay yimaadaan Carrington oo ah xarunta tababarka kooxda si ay tababaro dheeraad ay u qaataan ciyaartoyda Red Devils oo guuldaro bahadila kala soo kulantay kooxda Brentford ee ku soo garaacday 4-0 ayaa Erik ten Hag diiday in ciyaartoydiisa ay fasax galaan waxaana uu tababarka maanta uu ugu daray ciqaab adag sida uu sheegay wargeyska The Sun Erik ten Hag ayaa si gaar ah u xushay ciyaartoyda aadka u liitay ciyaartaasi waxaana meel gaar ah ula baxay si uu ugu canaanto garoonka tababarka dhexdiisa isla markaana ugu muujiyo qaladaadka ay sameeyeen lama sheegin magacyada ciyaartoyda Erik ten Hag canaantay balse waxaa la ogyahay in tababaraha Erik ten Hag si adag uga xanaaqay qaabkii ay u dheeleen ciyaartoyda kooxdiisa waxaana Manchester United qaybtii hore ciyaartay xalay ay la ciyaareen kooxda Brentford lagu marsiiyay qaybtii hore 4-0 taasi oo si adag uga carooday tababaraha kooxda Manchester United ee Erik ten Hag Liverpool ayaa raadinaysa guushii koowaad ee xilli ciyaareedkan ayaa Isniinta soo dhaweyn doonta kooxda Crystal Palace waxaana tababare Klopp isbedel ku sameyn doona shaxdiisa toddobaadkii hore uu kula ciyaaray kooxda Fulham iyadoo la hubo in kubasameeyaha reer Spain ee Thiago Alcantara uu ciyaartaasi ku dhaawacmay uu muddo bil iyo bara garoomada ka maqnaan doona hase yeeshee waxaa sidoo kale u badan tahay inuu ku soo bilaawdo Darwin Núñez oo kulankii hore qaybtii dambe bedel ku yimid Reds ayaa ciyaartii hore barbarac la soo gashay kooxda Fulham oo ku booqatay garoonkeeda halka Crystal Palace iyadana guuldaro ay kala kulantay kooxda Arsenal khabiirka cusub ee BBC Sport Christian Sutton iyo khabiirka kale ee Paul Merson ayaa saadaalin ka bixiyay ciyaarta Liverpool iyo Crystal Palace waxayna si isku mid ah isku raaceen hal arin oo ku saabsan Darwin Núñez Paul Merson ayaa yiri Liverpool waxay u baahan tahay inay hurdada ka toosto isbuucan si xun ayay ku bilowdeen xilli ciyaareedkana waxayna u baahan yihiin kubadda haysasho iyo orod dheeraada waxaana ognahay in Crystal Palace toddobaadka ku xumaa laakiin Liverpool waxay leedahay qaab ciyaareed aad u fiican waxaana uu sheegay in weerarka Liverpool haday isfahmaan goolal badan ay ka dhalin karaan kooxda Crystal Palace Darwin Núñez waa inuu ciyaarta ku soo bilowdo toddobaadkan wuxuu sameeyay ciyaar aad u fiican kulankii kooxdiisa Fulham ay la ciyaartay Chris Sutton oo isna ciyaartana ku saadaaliyay in Liverpool 4-0 ay ku garaaci doonto kooxda Crystal Palace ayaa sidoo kale saadaaliyay in uu ciyaartani uu ku soo bilaaban doono Darwin Núñez waxaana uu yiri Reds waxay dhibaato ka haysataa dhaawacyada laakiin waxa wax weyn u sameyn kara Klopp waa inuu ku soo bilaabo weeraryahanka cusub ee Núñez xataa qaar ka mid ah taageerayaasha Liverpool ayaa isweydiinaya sababta keedka ugu hayo xidigana guud ahaan waa naga inta barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka